إيش عدلك كل شيء غير سنة وكلام ماي هبي إنه ليب دبانتو ما تكين أظن وجودها كمان تكين أحمد كان أول جي دبانتي من سغلوي ما ده صوت دجال ما يه مسئين دبانتو قيل سعدي قاعد تسكب الدعوة دبانتو قاعد تانو قيدس غير دساي لك تاريخ دبانتو لك سهل ماي لا هبين كاي هبين أحمد قال له قرن قبيل القضية دجال بوت هجنا عيرو البوسترين دجال سلك هيو قرأ وقص هالو قرأ ودحدك بو قالوا لا تهلبورا نتقني 1992 89 ودلو دheer baanu galnaa oo kal saaraanu galnay oo 100 santiga ka dhimatay aan tifacdo 500 oo gaari lagu soo weeraray maanta in leey ka horkii iyo 10 kun oo wiil waxaan hayreerka kaliya ee tuulo kamid ah qurlugud iyo meega la iskulaalo oo maanta qurlugud olka ka soo gudbay maamul sheeganaya uu loo yahay hooyan kale adigana waxaan ku ka soo dhaqa qabrco xuduudku tagaya waxaa tiri dhulka waxaad ka degtaa la marsamanka in la sud muuqata horta halka carweyn baa ugu shaqeysa dhulkan tago wada waxa u jirta 9 kilomitir halkaana waxa u xigta meesha qurlugud aan maantooda la sameeyay gocon dhaale waxay u jirtaa 62 kilomitir halkaana galbeed baan ka jirnaa waa marka Soomaaliya laga hadlay degmada Buuhoodana walba 9 degmo iyo 9 gobolka Sool waa 4 degmo marka la kugu celinaya 3 maxamuud garaad baa iska la yala saanoodba midna wata habad aynaba deegaan 30 kilomitir dhulka kala bari la saaro 30 kilomitir bas jira 30 kilomitir iyo waxa suustayay sax dheer xuduudku maro luuqaasaad degan tahay dal xaggaasaad ka lahayd aadamaad kaa qaaday deegaamada ay degayeen jalam adaad lahaan jiray oo deganaa shalay deegaan laga qaadan ma godan 1991 bay Soomaalidu dawladdu ka burburtay oo marka daraawish shabki aynaba la qaatay beer maqashay 90 shabki iyadoo balli iyo badbaata ma ku jabay daraawish guri buu ka guur marka dad xitaa deegaan loo maxay laga guuray 1991 wixii ka dambeeyay ninka kaliya aan deegaanka sahabeen qof isaaq ka tanin ba yacdo kale meel kale ka yimid isagu xarbiga u ahaa maanta kale waa soo galgarigay laakiin sabab qolba 99 ninka u babac dhigayay Axmed Garaad waa qaranka ninkan wuxuu gooyay jadid wuxuu halka aad ku soo caban jirtay cadaw markuu muuqdo carruuraha geystaan gadaacida ku leeyahay qof kasta oo bahar samo cabsi la fadhiyo waaya sax dheer iyo dharkay sax dheer iyo kala bayd meesha uu soo eegaa buu hoodlay halka kale wajh kama yaalay oo madreey mu kala baxay marka leedahay nin baa iga yimi ninka aad xaqirayso nin kaliya uri baa iga yimi aad leedahay uri 2 markii xaabsaday waa socod lagu dilwaani ka difaaciyay buu haay gaadidku iyo rag la joogay Axmed Garaad bay ahaa haan walba way lahaa ee ka saaray magaalada xagga dambe ka saaray markii doonayeen labadii wiilashii laba qaban soo weeraray dalba baa ku la qabanay joogay magaalada Ibrahim Aydid bay ahaa xurriye ahaa deer baa joogay asxaano marka adiga la gumooyay darso dibid la baxay markii dambana waxba kama noqonay meesha adigu aad keentay balay diin baruuro qolofkaad gashay neemba kaaga wadbato jaasiyaad imka la sanad gooyay ka qaaday rubaanta isa uga dambeeya oo uu jooga aduguna diin baruur baad jaho halkaas aad ku badlan jaho markii marka baashe jaasiyaad oo kulaa 1993 ka soo baxay lagu bixiyay xarbiye adigu markii lagu yima dareem baadahay halkaas horta way ka tahay liiq rubaanta waxaad kaga beegnay halka intii aad hadda qof cid qof ma ilaahay ismeedin وبو كتجي ما كل دق كل لكن دفاعي وادوات garanaysa dad aan ragal horta taariikh saas aad uga maran oo fara kuma gaadho wallahi qoys kamid ah abaar soo ka badan taariikh kuma gaadho ingiriis baa sal ingiriis haddii aflagayda haddii gacan laga geystay isaaqaad sheegayso shabeelka ku daba jabay xuseen dheer waxaa shabeelka ku dabta
gudoomiye bal xasan buu dambeysay libaax oo khadka kaan leekin garad khadka kaan labada kun iyo warmalay maqlaan aniga lafteeda naasir balligoodii cali baraale tan ku qabsaday magaalada ya inaad roo ku maqlaa horfadhiyo inaad gubeedkana uu ka nikinaya inaad uu khalkhalay libaax oo khadka ka xun arka cali waraad libaax ma maqli waad ogtahay iga dhamaata khadka kaan leekin ma ya khadka waa baxay ba waraad inaad burigiisa dhacay inaad soo qabo haddan marka hore kor baan ka hadlayay laakiin iminkaan wuxuu yidhi meelaan rabay roob maygu weri inaad waa sugaynaa inaad ma xamanaya waa sugaynaa aad iyo aad inaad waa sugaynaa ninkaas ha yimaado inaadeer anigu waxaan sugayay intaa keliyaanba sugayay khadkaaga xumaadeen nimayo raalli hal layga ahdo mar labaad mar may soo dhowow inaadeer sii qaado sidaa inta waa war anigu ninka ragga libsa ma qaso nin raga baan ahay oo aan weligii libsa qaran isna aan qarsoomintiisu garaadkaa dhulbahantaad mari ahaydeen weligaaba ku soo celceli taariikh kale aad dhulbahantaa u gashay ma jirto af iyo adan iyo waali iyo mirqaba wuxuu dhulbahanta u jiray garad faarax marka xataa la gaadho axmed garad be waxna iska cadiya waxna dhiib jiray waxna rogi jiray isaaq waxay jiray 1920 inay baydan iyo boodadii khaldaan bariyaa laga nastay adna boobadin bariya naga wardo ku isaaq lahaayeen ku artamayay gumeeyay ilaa talabul ilaa agteeda ilaa dhuqushay barnaamijka taangada soo bari jiray dhulbahanta axmed garad be magaciisa lahaayeen baydan iyo ahaayeen kuwii oo ka shaqeeyay haddana awooddoodii haystay ku jooga magaalada awoodda aad axmed garaad ugu faanaysaa ama ugu sheeganayso noocay tahay noosha xageed ka keeni mararka qaar hadallada bay ka soo koomayaba waayo bahar sama iyo axmed garaad waxaan ku tartasiyay aan ahaynba wallaahi lagaba yaabo dad badan oo meesha fadhiyanaysa laba dhacsanaynba inaan dadka labadaa reer maanta maa ku kala dhigo inaan qoyskayga hoose qabsado mooyaane wallaahi bilaahi waan ka cudur daaranaya dad badan oo bogin baa jiri karay waan aaminsana bahar same dhulbahantan waxaa u yaqaan aniguna waxaan u aqaanaa waa wax caddaana masaakiin kalabaydhiyo meesha leeyahay sax dheer joogtaan lagu naqaana oo diinbaruura sakooye ina ximiso hirnabi xaasidkii lagu dacaydeeya mooyaane habeen irbad dhulbahanto ma gelin waxay kulli gooyeen oo sabcadarra usoo jiraan sabcadarrada imika leeyahay dhulbahanto waa la haystaa kollow ku helaata murug ku jiraan lambar 1 baa u tahay adoo nin sokoyaa ka cararaya aad u gashay kuwaana la socod kula degan baad u gashay xarak alla kaagama tarinoo waxba kama tiidin marka meeshiin waa mana is wasni warna raacdi gabadhi sheegtay baa kala habeen axmed garaad baa duumaad gelin habeen cagaar kama daqin weligiiba dawdar buu had darwiisha oo quwad dhulbahanto halkaa joogta oo dhulbahantana waa ay jiraybo adigu habeen dhulbahanto waxba ma tarin ingiriis baa waxaa ku yidhi ingiriiskan saysan waxba doon madax kala dhaca kuulaaye adaa koo filow jiitay aan dunida joogayno adigaa jidkii lagu mari jamcilaaneyn annaga ahaay iyo annagoo dhitiraxnaa jahaad taalid soo qaadna ismaaciil malay ragila bay ahaayeen mar kale u taarikh waxba lahay mar kale garaadkaagii baa lagu dilay taana oo sayidka ku dayay taariikhda halkaa kaga soo dintahayna ma jirto raggii dhulbaantay ee halkaa taariikhda gaala dirirka ku jirayna ma tihid sifil walkii soomaalidu gashayna meeshaad ka gashay waa loogiya haddana aad kaga jirto cadow ilaahay kuma keenay haddii maanta imika wajaho heerka ugu liidanayaad labeed ho qaba qoryada barito sukayo ibsatay maalid baba la sheegay inaad cagshar ka iibiseen afartii ugu sitay oo in cagshar ku haysto shalayta soo badhagay xarka ka jaray barqod ciidankiis
labadii 37 waad siisee waad ka iibisay habeenna uu aayi maayo afar lixda kale idinku hadhay dhibaanta inaad qoys yaroo dhibaanta ku turturtaan oo marka dambe aad layni ka qaadan mooyaane ma jirto qarankaa intuu ilaahay dhulka kaga abuuray wixii wacyigu ka dhigay marka esta Ethiopia oo 9 gobol Soomaaliya laga haysta kaga jirta mooyaane oo awood ka weyn hayst joogta mooyaane qarankaasaan haylahay intii kaga abuuray 20 kilomitir ha gaadhiyaan cidi ka fuujinayn habeen cidi ku dhibin فعلا مع صدى ذاك هاي هذا بيت هذا مثلا ما له عيل درت عن طبعا ما له رقيصه تقود دوميا ما له ود وحيا soo suqni suqay labana suqay dhulka gaman yadiso labadii waxaan waxyaabaha nu deynay waxa kamid ah hadda imika codka waxaan naleysiin karaa baan kuli nix masakil ee adiga reerkiina oo le maanta dhibaatadan haysan anagu noogu dhaaf tala gacan lagu jirto deegaan gacanta kuma hayno gumbaana kaliya waxaad noo kartaa inaad xoreysaan talada gacanta lagu socdisaan wallahi wuu duubaya YouTube ku jira Axmed Saki waa taqaanayo abwaan buu sheegtaa ninka koofiyada qaata waxyaabaha badan ee anigu ka talaasulay ayaa ka muuqataan ku sii daray waxa sabab kamid ah oo duubta ma jarteen ba soo dhagay maalin dhow wallahi baan ku ma jarteen Facebook mid ku jira soo dhagay waxyaaba badan baan ka siiriyay horta anigu dad uma naqaan nimankan aad leedahay meeg la qaata انت بسيل بانو نقانا عيدي دون طبق عندك نكرت ها inaad Ilmaha midda ka Nasru. dhacdeen qaatee malay maqlaata aniga ونو خد كابانيga adag de horta malay maqlaata aniga inaad libaax wad qaatay u kaadiniyo ha libaax baa mudiga kara halka way meega dhamaad ana ku mudiga kara dhamanti waxa gira kana mat mudiga waxa aan zaman inaad 45 ma ku dhacaan ka qaadanaya waa ku maqlayaa inaad 45 inaad way ku dhacday waan ka qaadanayaa hor fadhiyo waaba la igu dirayaaye horta yarkan maskiinka taariikh iyo wax kasta midna horta kuma rog sheegin waayo waxaad ka tahay gablan dhalay oo ina gubeeda oo Axmed Garaada oo baharasna mas'uul ka tahay ilaahay aakhiriya adduunba ka sokooba war dhul bahanto dhantu dhinac maro iyo baharasna ba meey qaadan kara laakiin caawa gifay ku tahay tolkay dadka hoos ka dhageysanaya maasajid si roobka noqdeen waxaan ku hor la ilmaha reer horta iga raali lahaada waxaad iga raali lahaanaysaa horta dee ninkaasaan la qaadanayaa laangaab ku dhalay ee ciilan ee khariidada Soomaaliya ee sababka wuxuu ka degaa less than 15 kilometer dadka qaarna waxay dhaheen 20 kilometer hor fadhi ilaa buuhoodle ninka noocaas horta in aniga ila murmo ama ila hadlo horta waa nasiib daro dhulkaagii mi horta nacla adigiya aabaha baa ku yaala libaax madow iyo balaayal iskala soo baxaysaa aadan daaqada ku hayn ka huleele hagar adankii howlayn jiray danow nimanka reer inaan ku dilaa horta cid aan ku dilaa ma garanay laakiin nimanka reer baan ku dilayaa haddii shalin Axmed Garaada meek qaadanayaana diyaar baan u fadhiyaayo anaa u fadhiyo hays baladilay ka howleele hagar adankii howlayn jiray war qorlugid meel kasta ay noqoto adaa lahaa waxaad tiri mar dhaweyd inaan gubeed ku dhalay laangaabka ee weliba yacni xitaa afgarooc baa tahay waniyow nimanka boodla ka yimaado xitaa hadalkoodu suudaan iyo gabaye iyo waxbuu lahaan jireen adigu inta xitaa midna ma tihin aadan carab mujaahid dhulbaantuu ahaayo ilaahay u naxariisto anigu ma oranayo yacni waxyaalaad ka dhawaajinaysay laakiin sida uu igu qiray libtayda aniga waana adeerka adiga nacla adigiyo hooyadaaba ku yaalay inaan gubeed ku dhalay bil dhageyso siduu libtayda aniga igu qoray aadan carab muxuu lahaa aadan carab ninkii lahaa buu ahaa markii aniga iyo boqoradiibaa bacadka taagnayne
waxay ahayd dagaalkii hayuha markii dambe aad noo soo calaacalayseen aanu maqnuudnimadiin iyo hawlihiina aan aragnayna maxaad tidhaahdeen naclaa idinka iyo hooyadiinba ku yaallay wallaahi bilaahi tallaahi waan idin buufinaya weliba idinka waxaan idin soo marayaa war reer kastoo dhulbahanto oo baarasama u baahan hadda laga bilaabo we are ready wallaahi waa idin buufinaynaa aakhiraa laydin dirayaa aad iyo aad maxaad tidhahdeen markii dambe aan maqnuudnimadeena aragnay maalintii uu lahaa ninka iyo garaadadiiba bacadka taagniine maalintii dambena muxuu lahaa adan carab allah u naxariistee in mujaahid oo anigu kuma xadgudbay anu sidaadayna gubeyn noqon maayo wuxuu lahaa malaha qaran roob qore nimankan khaliifada boqoray baan khoof kaba ogeyne malaha qaran roob qura ayay dagaal kaga qaraareen qarradan garanaysaa waa haye intaan ku difaacay oo raggaygii ku dhintay xabaala maxamed baa leeyahay ninka khaalid isagoo qoslaya ayuu ii sheegay in adeer ilmaadeerada la rugaasay laakiin adigoo kaloo nanguweed axmed garaado nanaada imaan waxuna midgaan dhalay nacal hooyada ku yaalo soomaaliyana waxaad ka digtaa 20 kilomitr 20 fucking kilomitr baa ka digtaa lascaanood markaad imaanaysina adeer durdurka lascaanood markaad marayso nacal adigiyo hooyadaa ku yaaleen waxaad haydeen nimankii kabaha laga bixin jiray moogta warcagaha loo meedho nimanku yiisan tilaamiga sidaa ku korin nimanka noocaas ahay adigiyo hooyadaa buus waxaa soo hadhay cumar maxamuud dagaalkan dhex maray adoo orday aad ii imaanayso marka xabaddu istaagtaad noo imaanayso 2 mar baad ii timin xabaddu istaagto ninka idinku qaalisan adiga shakhsi ahaan weliba jifidaadaa tahay markaad wax u bixin kari weydii cayd dhalay gaajo dhashana waa tahay geel hanti mid aadan u hayn ninkii magta kaa bixinay nin baharsamaha nin kasto axmed garaadana waxaa ku waajiba salaad kasta markuu tukado markuu atixiyaad ka dhamaysto salaama naqsado inta hore ilaahay baa loo tukadaayo howlaha ilaahay anagu ku qabsan mayno boqortooyadu dee waa wixiise waa cadaysataa inaadan ku qabsan mayno laakiin marka salaad samal naqsi wax laga nin kastoo baaris ma dufacsan calhayno gaal idinku ordayo yaahuuna oo afka kabaha ku sida ma timaadeen maarayaal mag baan lagu leeyahay lacagta qaat ma taqaana wax la strip dance naagaha strippers sidoo kale baan lacagta kugu sayriyaa nacala adigii hooyadaaba ku yaal waxaad dhul baahantay libin uma sheegan karti dhul baahantay aan bahar sama ahayn miyaa jira inta qodob aan ku weydiiyey hal qodob oo ka mid ah meegiga hore qodob baan kugu weydiiyey su'aalaan kugu weydiiyey hal su'aal kamaana jawaabin waxaad noqotay inaad iska baalkeer baharaacdo Ethiopian yahow Ethiopian ku dhalay nacala hooyada ku yaal Soomaaliya xageed ka digtaa horta inta magaalo aan Soomaaliya oo baharsan ka digto wallahi oo billahi oo tullahi يعني لما حد يذكر أذينهم حكت تدخن أنا نرجع سمكابة واسكده بحر السمر غيرنا عليه غير نور غير كذا حي أنت والله إني كله قادن كرام جرت أنا غير سمكابة أنت سومالي كدجو أنت عن لمن سومالي أسو هوي باكابلا على هذه هوي ذا بكيال سيد الله متقانا وكنت متقانا يعني وكنت تشوي صار بانو كودو رينا meelgeegan caaw waxaan jeclaan lahaa reero kale inaan la qaato laakiin adiga oo iska cawaan dhalay oo dhaguxu yacni wax iskaga xidhan yihiin oo balaaya ku xidhantaa iskaga daftoo yiri inaan ku gubo oo kaa shiilo oo cuqdadan baharsane aydan haysa nacala idinkii hooyadinba ku yaalee aan idinka gubo diyaar baan ahay adeer baharsane waa nimanka boqortooyada dalkoodii wax kastaba iska dardaarac baan u raacay wargabayada ay majeerteen tirinayaan markaad aragtid gumburka cagaarayo ay ka tirinayaan togeera gooyi wax kas ka tirinayaan in majeerteen lahaan jiray iyo in baharsama lahaan jiray hal homework baan ku siinayaa carar haddaad nin raga tahay weliba xitaa hameentii haddaad meegtahay waan dalbanayaa wallahi diyaar baan u ahay waan dhaartay soo raadiyo allah ninkii majeerteen waad heli kartaa soo raadi yaa degi jiray
hal taako oo bahar sama leedahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi xitaa laguma xadgudbin cadaadda noogu dhoweey cadaaddu hadda waa magaalo bahar sama gumurka cagaara waa magaalo bahar sama tog erag waa magaalo bahar sama qoroli warkeeda daab xaggan niman ugaasyo sharafta naga xiga adigu maxaa tahay inta magaale ee dhulbahanta lahaa ee aad ka carartay iyo boogta dhulbahante ku taala kaftan hadday noqoto meeg hadday noqoto gabay hadday noqoto intaba nimanka axmed garaadun baa lasoo hostegayaa axmed garaadow de maxaa dhilada idinka dhigay nacalaa idinkii hooyadiinba ku yaalay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaanan idin naxarsanayn reer kastoo dhulbaantoo shoolada baharsama soo kulaana wallahi waan sheegnaa ilaa intaad ka noqonaysaan raajiciya sidaad awal baahan jirteen rajuuc waan idin soo rujuucunay garaadadeediiyow laba nin oo ilmaadeeraynu nahay nin maxamed garaadan heno reer cabdullah shirshoora adna nin axmed garaadat waay aniga garaadnimada aad aniga ii tahay khabaanka maxaad igu noqotay waay bal su-aasha adiguna isweydii macalaadiyo hooyada ku yaala laba nin oo ilmaadeeraynu nahay maxaan kuu noqotay inaan kaa fiicanahay kaa laandheeraysanahay taariikh hadda la joogana ninka soomaali maxamed ugu lacagta badan waa nin baharsama laascaanood hadday noqoto waxaa tii laascaanood maxamuud garaad baa leh war nimanka maxamuud garaad rayd iyo roon labadaba way yaqaani waa laandheera haddii nin maxamuud garaad saaraan lahaa wuxuu igu oran lahaa wax badan buu ii qiri lahaa anna wax badan baan u qiri lahaa laakiin adigu waxaa tahay ina gubeed midgaan dhalay ina gubeeda oo aan wax qiri karin oo aan weliba wax quuri karin oo weliba wax iska celi ku jira ninka u gaariyahan ama ninka jaacsi ama ninka siyaad maxamuud wuxuu qirayaa inaan anigu cumar maxamuud oo dhan guryahoodii iyo magaalooyinkoodii ka qaadan deganahay wuxuu guray laandheertu nacala hooyadaa ku yaalay markaad magaalada qaadaysay ciidan baa kuu soo diray biigu oranayaa oo markuu ilib sheeganaya laakiin adigu maxaa tahay midgaan rasaad caynaba uga soo carartay hirir uga soo carartay qorluud uga carartay waxaasoo dhan baad yacni boogtaasoo doonaysa dhulbaanta inaad kuga geli karto war adeer haddii dhulbaantaha kale ku daayeen wallaahi bilaahi kuma deeniyo waan ku dhabarkaan kugu dhufanayaa dhabarkaan kaa jibinayaa nacalaa adigiiyo hooyadaaba ku yaal inan gubeedku dhabarkaan kaa jibinaya anigu daliilaan keeshanaya war anigu haye waan kugu yimi daliiladeediina waa aniga kuu sheegay gabayadii aadan carab tirimaya raximahullah waa nin mujaahido dhulbaantoo laandheero ahaa baan kuu haya kalshaala waan kugu yimi suugbadeedkadii iyo tiknikadii baa ka dagaalamayo raggaygi baa ku dhintay jirteen oo bs wax kasta wata nimanka maxamuud garaad waxbaa iga imaanaya adigu maxaad u imaan nimanka maxamuud garaad markay imaanayeen baharsama keliya dagaalamaysay wax kala dagaalamaysay nimanka ugaadhiyahan weliba nefaari gurigu sii imaanayeen anoo majartiin hubkan ka furtay markaan celinayna la ogaa macalla hooyadaa ku yaalay maxaa sababay adiguna futo dhiigle iyo gabay calaacala iyo wax iyo balaayo la taagan tahay inaad nin qayrkaaya ammaanto maahee dhulbaanta taariikhaad ugu toosantay ma jirto nacalla hooyadaa waxaan kugu soo gabagabeynayaa jagada dhulbaanta ugu sarreeyay gaadho laba jagaa dhulbaanta ugu sarreeyey midna wuxuu axmed salebaan cabdalle sharaf iyo raximahullah wuu nool yahay biljan wuu degan yahay ilaahay ha sharfo wana adeerkan ku faani karaa midna wuxuu cali khaliif kalayd rasuulada soomaali noqdo saxdar wuu joogay waxaa tiri markuu buhood laga yimaan difaacay war iska daa inaad cali khaliif difaacdee garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaadka guud dhulbahantaa iyo garaad jaamac garaad saaci maalintii joogeen buhoodle magaalada hanooga baxo waa tuulo waa noocana waanu kornay intay lacag wajigaaga dhufteen bay ku dheen sida streebrika mataqaana sida streebrika nagaha qaqaawanaya inta dharka iska bixiyeen kaasa baad u jaajisay nacalla hooyadaa ku yaala raggaagana maalintuu godob galo oo caydh dhasha baa tee annakaa magta ka bixino saasaan ugu saynaa